kulanti wacan daawadayaal meel kastoo dunida dacaladeeda nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan xilli tabinteennii wareed ee Warsan News qodobada warka maanta aan ugu haynana waxa kamid ah xidiga Bollywoodka ee Akshay Kumar oo uu haleelay xanuunka COVID-19 maxay tahay sababta dawladda Soomaaliya ay u fasaxday Cabdirashiid Janan oo gabadh loo haysto iyo sidoo kale Israa'iil ma iska indhatiri doontaa weydiimaha garyaqaanka guud ee maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ dalka Shiinaha oo sii kordhinaya dhaqdhaqaaqyada militariga ee uu ka wado gudaha xadka Taiwan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan inta xilli tabinteena wareed socoto imakii haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aan ku bilaabay xidiga Bollywoodka aflaanta Hindiya ee Akshay Kumar loo yaqaano amaba khilaadii hadba saad u taqaano ayaa dhakhtar la dhigay sabab la xidhiidha xanuunka COVID-19 oo ku dhacay qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maalintii shalay ayaa waxa uu kula hadlay taageerayaashiisa isagoo ugu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay balse aktarka ayaa waxa uu sheegay in dhakhtarka uu tagay sabab la xidhiidha binta caafimaadkiisa kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 53 jirkan ayaa qoraal u soo galiyay bartiisa Twitter-ka isagoo ku sheegay in dhakhtarka la dhigay sabab la xidhiidha xanuunka COVID-19 isagoo ku bilaabay hadalkiisa aad iyo aad ayay u mahadsantihiin dhammaantiin ducada iyo rajaynta diiraan ee aad ii soo dirteen waxay u muuqataa in la idka aqbalay aad baan u ladanahay balse taxadar iyo talo caafimaad awgeed ayaan cisbitaalka la geeyay waxaan rajaynayaa inaan goordhow ka soo laabto gurigeyga amaba xaafadda ayuu qoraalkaasi ku yiri Akshay Kumar taageerayaasha xidigan ayaa si weyn uga argagaxay qoraalkaasi inkastoo uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay Akshay Kumar ayaa filmaanta Bollywoodka Hindiya ku soo biiray 1991 isagoo jiray filmaan badan oo dunida iyo sidoo kale caalamka laga jecel yahay Soomaalida gudaheedana Akshay Kumar si weyn baa looga jecel yahay daawashada aflaamtiisa iyadoo Soomaali badan ay ku xiran tahay waa hagaag daawadayaal hadii balimakana aynu eegno dhanka iyo Soomaaliya dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa saamaxday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ahaa eedeysana ka baxsaday gacanta ciidanka booliska Muqdisho xilli ay maxkamadii ku socotay Cabdirashiid Janan ayaa heshiis la galay xukuumadda madaxweynihii xilligiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isagoo isku soo dhiibay dawladda bishii Maarch la soo dhaafay Cabdirashiid Janan ayaa lagu eedeeyay gabadh uu geystay shacabka Soomaaliyeed intii uu xilka wasiirka amniga Jubbaland hayay heshiiska dawladda iyo Cabdirashiid Janan waxa cambaareeyay hay'adaha xuquuqul insaanka oo ugu baaqay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay maxkamadda hor keento Cabdirashiid Janan inkastoo arrintaasi ay ka dhaga adeegtay balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Cabdirashiid Janan loo qorsheeyay in loo dhoofiyo dalka Turkiga hogaamiyaha urur siyaasadeedka mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo bartiisa Facebook kaga hadlayay cafinta Cabdirashiid Janan ayaa gaashaanka u daruuray isagoo arrintaasi dhaliilay wuxuuna isbarbardhig ku sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo xeer ilaalinta maxkamadda dalkaasi ku soo oogtay dacwad halka xeer ilaalinta qaranka Soomaaliyeedna uu sheegay inay saamaxday Cabdirashiid Janan oo loo haysto gabadh وهاجاج الدعوة هدي أينو إجنو قضب كوجود دنبيها حل تبنتين ورد دولة دالك تايوان أيا كعبان يسعيد مدى ملتري مراكب تهوب كسيدا جودها أصوغ جري حد كذا تشينا لجلي هاي يضع أرنتا سكو إذا يسد دالك الشينها أو شيء تايوان أي قيب دول كذا كم إذا تهاي هالك تايوان نها أي دي دالك عسين أي كم تهاي أو أي سكوت المانت دولة مدح بنان dawladda Shiinaha ayaa dhankeeda ku faanaysa inay kordhisay ciidanka iyo maraakiibta ku sugan badweynta kala qaybisay labada dawladood wuxuuna Shiinuhu ku tilmaamay dhoolatuskan mid uu ku ilaalinayo madax banaanida wadankiisa inkastoo Taiwan ka cabatay korarka ku yimid dhaqdhaqaaqa militari ee Shiinuhu dalkeeda ka dhaxwado ciidamada badda ee Shiinaha ayaa sheegay in kooxda maraakiibta ee xamuulka hubka qaada oo ay hogaaminayaan Lyon oo ah markab caan ka ah wadankaasi isla markaasina ah markabkii ugu horeeyay ee diyaaradeed ee wadankaasi leeyahay ee gaaray aagaasi si ay u fuliyaan bay yiraahdeen dhoolatusyo caadi ah biyaha ku ag dhow Taiwan sidaasi waxa laga soo xigtay militariga badda ee dalka China
ujeedada ayaa ah in kor loo qaado awoodooda si loo ilaaliyo qarannimada, amniga iyo danaha horumarka ayay yiraahdeen ciidanku, iyagoo intaasi ku daray inuu socon doono si joogto ah amaba si maalinle ah. maraakiibta xambaarayaasha diyaaradaha ee nooca loo yaqaano 055 oo ah kuwo waaweyn oo waxdumiyaha ayaa waxaa la keenay goobtaasi, iyadoo laga soo xigtay ciidanka military ee badda ee Shiinaha. labada markab ee Lion iyo Xion oo la sheegay inay sameeyeen tababaro iyagoo ku kulmay meel u dhow Taiwan bishii December 2019 wax yar ka hor doorashooyinkii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee Taiwan. Xion waxay ku dhaxmareen marinka xasaasiga ah ee Taiwan. tallaabadaasi Taiwan way cambaaraysay iyadoo ku tilmaantay isku day cabsi gelina. madaxweynaha Taiwan ayaa kormeeraya dib u habeyn lagu sameynayo militariga jasiiradda, iyadoo soo bandhigaysa qalab cusub oo lagu magacaabo Carrier Killer, kuwaasi oo ah maraakiib casri ah oo ay soo bandhigayso dalka Taiwan. halkaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaa xilitibinteennii maanta ee Warsan News. intaynu warkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo amaano Allah nabadgeliyo, balse daawada ka mid noqo saaxiibada sida joogtada ah noogu xidhan, isla markaasina noo saar Warsan News subscribe. mahadsanidin.